هذا محاسلة مرك دورشة قبصان دكتور أكتوبر 17 كده سي حسلوني إنه قبصان تارجيني إن شاء الله. إن هدي أن سؤال شو قدام مثلا كويتيو أنا محاجر حساسي وهذا ما صارته وأنا صومالي كده عادي عبد الكريم قلبي دقح ولو دي بي إثيوبيا هل أنت محاد كمقسين أم محاد كفهمتين إن هرتو هر إثيوبيا Soomaali هرتو hadda ma ahan wax bilaawatay maxaa la dhahay irbad ku taageeda anaga Ethiopia horta dadkeena aabayaashan iyo dadkeena hore markii aadaan iskoolash waxa la dhigi jiray adowgaada koowaad waa Ethiopia sidaas ayada keentay horta hore in maxaa la Ethiopia anaga aan isku fiicneen waa arkaysay Abdullahi Yusuf wixii lagu naaxuwa Ethiopia uu soo galay wadanka markii uu dhahay hano ii qabtaan intay dawladnimada aan ka dhisanayo saxaasi aan ka dhisanayo ha noqdaan kuwii isahayaan to saa'idan waxaan baareenahay arintaas farmaajo arintaas waa arinta dadka Soomaali weyn ka hor keentay oo arintaas waa arinta maxaa la ruux walba ku nacay إن صح استمجرز وزارة هذا كورو كسوسي داي إن من حسب بيو كسوسي داي إثيوبيا إن أرنتاس واي هرتو ماشى سو قبل ولا هيشيس كود إن ضد كان مركل الدورنا فرماج روح البو وهم وينا روح البورتو رسيد عنا لوسي نموس من روح البو وهم وينا روح البو كفر أحسن دور الشريسة إن وحيالها قاركود وضد كعوانين هتور اسكو حريرين تو وصابرتي وأنجرن لا وأمسين إلى هاد وهادين إن مركل وصاد دورت الصومال هرتو ودن قلاسة كجرتو حالة international system كمركل آخر سنة fail state وودن محلها agagaarkiisa boundaries ama xaaladaha ay gudihiisa xukumi karin oo sababteeda dad baa ku jira oo la rabaan oo wadanka dawlad adag ma dhisin waxyaalaha la rabaan inuu hagaajiyo ilaa dastuurka wadanka Soomaaliya ilaa hadda uu socda hadaan intaan gelin ilaa hadda uu socda waxyaalaha horta uu ku dhacan ku sheeha ilaa hadda wali waa la qoray waxa keentay wadamo qaarkood Slovenia afar maalin bas lagu qoray anaga dastuur teen hore uu fiicnaa hadii waxyaalo badan yar laga bedelo way fiicnaan lahayd taa wali uu ku dhacay wali ilaa hadda wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan booliis maxallahay ragan wax ilaaliyaan oo quman aan la imaado wali ilaa hadda wali uu kari laahay Soomaali wali lacagteeda waa aragtay hadda marka wax soo gadan rabo gaariyoor baan iska qaadan oo intaas oo marka wax soo gadan rabo wali way hooseysan lacagteeda miya ilaa hadda way hooseysaa mideeda kale waxa Soomaali ku xuntahay hadii la dhaho la fiiriyo dhinaca maxallahay wadan wali haduu ra'iisul wasaare haduu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wax kala dhigi afar qabiil iyo wali waxa ku jiraan marka waa arin adag laakiin mid qalbi dhagax saa'id bay u helayeen markaas aan ahaan fikrad ahaanteeda dadka in siyaasadda waxa Soomaali Ethiopia isku soo heshiiskooda isku fiinayso markuu ra'iisul wasaaraha dadka ka soo siiday xasbi ruux walba ku farxay laakiin ma ogeyn in shuruud lagu xiray ilaa waqti way aamuseen umaleeni marka ninkan la dhiiwa horta waa nin Soomaaliyeed waa nin wadan ku soo dagaalamay u soo halgamay 77 ha uu ka gal intaas oo laba maxallahay ha laba injury waxa laha dhaawac adag ba soo gaaray waa nin wadan ku soo halgamayo ninka dhiibitaankiisa dad badan ba horta hore ku naceen maxaa la dhahay farmaajo waa laga fiican ilaa hadana kama hadlin waxay tusinaysaa inuu qayb leh wax ka qaatay haduu ka hadli lahaa dhila dadka iyaga hooseeyaan waay mas'adad saan waay defense ka maxaa la dhahay dadkaas u dhiibeen wasiirashan soo doortay waxyaalaha hadii aan leeyahay dadka madaxweynaha wuxuu ogeyn inay sameynayaan way adag ma dhacdo waa asagu hadii la fiiriyo sharci ahaan horta Geneva Convention sharci ahaan hadii loo Geneva Convention jirta oo Geneva Convention waxa way wadanka dagaalkii hore labaad inta la gelin waxa jirtay maxallahay wax lagu heshiiyay shuruud ahaan wadamaha markii iska qabsanay oo ruux walba wadan u gumaysanay ee ka dambeysay dagaalka weyn markuu dhacay qof wadan kale u dhiibi karo laba waxa jirta qofkaas asaga haduu qofka maxallahay dagaal uu jiro dad la isku bedelayo سما فهمي ومد إنه قفك محله لكن تن هذا قلب دجح ومد وانين ودن كيس جورس أو صومالي كجوج أو دد كيس جعلين هذه إثيوبيا وحكي الإسكو جلين وأيك أطالع إنه هرتو قف كيس ديو ولا في يعني أرنا جرتاد عادي أو السعودية العربية يو إنجليزكا السعودية العربية نبى جري أو أخرسته أو كسر جدي دولة محلها kingdom kaas ayada jiray ka soo horjeeday kingdom waxa waaye boqortooyadu ka soo horjeeday si aad u xun markuu wuxuu dhahay boqortooyadan ma jirto doorasho aan saan ma fiicna because hal cid ba isku wareejin xukunka waa laga fiican aan doorasho ninkii waxa loo arkay inuu waxay u arkeen maxallaha doorasho wadanka uu dadka qayli keenayo ninkii maxallaha wuxuu raadsaday nabadgelyo u raadsaday Ingiriiska u carray sababtoo ah hadaa marba iskhilaaf keentiin adiga qofka u weyn wadanka xukumayo arinta uma qaadanaysa si ciyaar
marka wuxuu aaday ilaa iyo maxaa la dhahay ninka wuxuu aaday ingiriiska u raadsaday maxaa la dhahay nabadgelyo ingiriiska markuu raadsaday ingiriiska iyo wadanka dhulka carabta oo Saudi Arabia waxa ka dhaxaysay bilateral trade oo fiican oo maxaa la dhahay isku bedelayeen heshiis oo intaas oo million of dollar isku bedelayeen oo hubha aad wixii ahaata marka taasaa keentay inay la hadasho prime minister marka ra'iisul wasaarihii ingiriiska dhahdo inuu soo gudbiyo ninkaas hadaa rabtiin inuu socoto becsharadeen iyo wada hadalkeena ninkii prime wasiir wasaarihii wuxuu fikiray wadankiisu fiirinayay nin carabna waxba kama gelin dhahay wuxuu dhahay ninkan haloo wareejiyo ninkii abukaatu qabsaday maxkamad buu aaday maxkamad markuu aaday ninka wuxuu dhahay maxaa la dhahay wadan ani wax wadankiina soo raadsaday maxaa la dhahay u soo raadsaday nabadgelyo in wadanka liidiyo waa laga fiican ninka adii loo kiisay iyo abuka uu suquman buu ninka uu wajahay marka abukaati wuxuu dhahay in kiiska wareysay sababta ayada uu u reeyay waa laba qodob qodobka koowaad nin horta hore oo way ku fool xumaatay ingiriiska inay qabato ay geyso Saudi Arabia oo ay xagga geyso wuxuu dhahay marka midda labaad oo ku xukumay waxa waay ninkaas hadda ra'iisul wasaaraha haduu adig kugu ceshto intaas oo million of dollar uu kugu ceshto bari ninka dadkiisu gadan aan way gadan marka nin haduu ingiriis oo dad ingiriiska ay saa u fikiraan nin Soomaali oo isku dhiig aatiin oo walaalka oo dad wadanka u soo halgamay oo maxaa wadanka joogay inaad wado عدو u dhiibto dadka Soomaaliyeedka saad bay u fuulxuntay saad ay u xuntay haddana waxaan u maleynaa inuu dhici doonta inuu inta saa uma aamusnaanay madaxweynaha Farmaajo uu ka hadli doona markuu ka dhawaaqo arki doona sharci ahayd in la dhiibo والله شرعي ما جرو شرعي waxa xukuma international law waxa la dhahaa iyo Geneva Convention kaas oo dagaalka waxa ku saabsan oo lagu noqdo sharcigaas waxa waay qof bilis ahaan in la geeyo iyo qofka labada ruux oo dagaaleen in la isku wareejiyo marka wadanka dagaal haduu ka dhamayso waa dadkiisa xisbi prisoners in la isku wareejiyo sharci kale ma jirto sharci kale labada wadan u qoran ma sheegi kar laakiin sharci adduunku yahay waa ka aad u maasantahay ma santahay daawada intaas aan ku soo afmeerinaa wareysiga gabnay aan ku soo u talagalnay inaan ku falanqeyno doorashada guud ah ee dalka Kenya iyo arintii xasaasiga ahayd ee qalbi dhagax intaas iyo nabadgelyo ayaan leeyahay